salaamu ullaahi calaykum dhammaantiin soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kasta oo idin tahayba muuqaalkan waxaa insha allah ku dulmari doonaa taxliilinteena asbuuca ee suuqa fursadaha aan gaadayno inta u dhaxaysa 6 bisha oo beriyo isniina ka bilaabanaysa ilaa iyo 10 bisha jimcaha asbuuca soo socda dabcan muuqaalkan waxaan duubaynaa caawa oo habeen ay soo galayso isniin wuxuu furmi doonaa suuqu insha allah Soomaaliya waqtigeeda waxaan filayaa inay tahay 6 saac meelahaas 12 habeenimo hase haatee in aanu sii diyaar garowno ayaan ugu talagalay that's why aan videogan u duubayo halkii aan zoom soo geli jirnay asbuuca bilowgiisa saan fursadaha suuqa iskula fiirino ayaan waxaan ka fikiray in aan muuqaal ka kooban zoomka oo aan kaga hadlayno dhammaan setup-yada aniga ii diyaarsan personal ahaan inaan la dulmaro sidoo kale asbuuca oo dhan zoomamkeenu way jiri doonaan insha allah ardayda Hayaan Academy ee ku jirta gruubyada asbuucii dhaweed 6 maalin oo cusub ayaa zoomamka galay waxaa 4 maalmood aanu qaadanay wax ka badan maalin walba 3 zoom runtii wuxuu asbuucaada qurux badan meeshii asbuucii dhaweed lagu joojiyay ayaa laga sii wadi doonaa insha allah setup-yada aan idin la wadaagi doono videogan marka ay diyaar garoobaana gruubyada ayaan idin kula soo wadaagi doonaa insha allah haddii aan ku bilowno asbuuceena sida caadiga ah lacagta suuqa ugu awood weyn waa lacagta dollarka sidoo kale waxaynu ogeen dollarka jimcadii inuu ka soo baxay newska ugu weynaa bisha oo dhan oo ah newska shaqada iyo shaqo la'aanta dalka Mareykanka ama waxa loo yaqaan non-farm payroll ama NFP oo dabcan 700,000 oo ruux ay shaqo la'aan ku dhacday Mareykanka haddana sidaas oo ay tahay wax saameyn aysan suuqa ku yeelan maadaama coronavirus-ka dartiis uu Mareykanku dalka halshaan iyo shacabka Mareykanka uu siiyay lacag zaa'id ah waxayna ogeen asbuucii hadda dhamaaday bilowgiisii isniintii in madaxweyne Trump uu saxay $2 trillion oo lagu saaciidayo dhaqaalaha Mareykanka dabcan arrimahaas darteed waxayna ogeen in jimcadii dhaweed soo waxba ka bedelan NFP suuqa marka insha Allah anagoo ka fakarayna fundamentalka ayaan isku dayi doonaa inaan sidoo kale technicalka isla fiirino sida caadiga ah waxayna ogeen waxa la yiraahdo in last week ama asbuuci ka horreeyay waxaa jira video aydan la wadaagay oo aan kaga hadlayay sida anigu aan u trade gareeyo ama trading routine-kayga ruleskayga waxaa kow ka ahaa marka hore inaan u baahannahay inaynu ogaano jihada guud ee suuqa sida aynu ogeynba last week general directionka dollarku wuxuu ekaa mid soo kabsanayay oo soo kacayay muddadii u dambeysay marka aad fiirisid oo waxaynu ogeyn in uu halkan kasoo bilowday ilaa iyo 2018 ay awood soo yeelanaysay lacagta dollarku ay kor u soo socotay oo waxaynu ogeen general directionka dollarku inuu ahaa maxay inuu ahaa waxa la yiraahdo buy waxa la yiraahdo oo ay awood yeelanaysay hase ahaatee intaan aan arkaysid waa 3 asbuuc u dambeeyay ama 5 asbuuc u dambeeyay oo coronavirus ku jiray oo waxba unpredictable u suuq dhan ahaa wax walbana ay wareersanaayeen marka waxaynu ogeen general directionka suuqaana inuu yahay maxay in uu yahay waxa la yiraahdo buy haddaba anaga oo niyadda ku hayna fikirkaas ayaan waxaan ka fakaraynaa maxay lower time frames-keena si aynu ugu qiimeyno taxliilinteena habkii aan uga faa'iideysanay fursadda suuqa waxaan idiin soo sheegay asbuucii hore markaan zoomka ku wada jirnay in ay muhiim tahay inay ku calaamadsan yihiin meelaha uu suuqu ka kaco ee demand and supply zone-ka ah ee dib loogu soo laaban karo saddexda meelood oo hadda ku muuqata waa saddexda sayladood ee ugu adag ee aan ka rajaynayno dollarku inuu wax price action ka sameeyo marka uu yimaado dabcan si aynu u xaqiijino suuqan jiha ahaan meesha u jeedo waxaad isticmaali kartaa tip aan zoomamka hore idin kula soo maray oo ah inaad fiirisid maxay inaad fiirisid qaabkii ama routinkii uu suuq u socday in wax laga bedelay haddii aan forward ka qaadno halkan double top ayuu naga siiyay suuqan muddo kadib isagoo soo kala wareegay oo markii hore halkan ayuu wuxuu uga socday maxay wuxuu uga socday buy ayuu uga socday kadibna halkan ayuu ka kala wareegay wixii ka dambeeyay fursad sell ay halkan ka bilaabatay move-kii koowaad kan u ahaa move-kii labaad kan u ahaa move-kii saddexaadna kan u ahaa kala wareeg ayaa dhacay marka kala wareegga inagu in uu suuqaani jihadii u socday ma jihada kale uu aaday waxaan ku garan karnaa maxay marka ugu horeysa ee korkii lagu soo noqon waayo oo korka cusub u yimaado tusaalahaan kale suuqaani saan u soo socday Soomaa markasta oo uu samaysto hoos cusub maxaan ka filanaynay kor cusub maadaama aan fursad rabnay sax haddana hoos cusub ayuu samaystay haddana muxuu samaystay kor cusub ayuu samaystay haddana muxuu samaystay hoos cusub
maxaa la rabay korka cusub uu samaysanayo inuusan dhaafin korkii hore soo maaha marka ugu horeysay oo korkii hore ka koreeya uu soo baxay waxay ka dhigan tahay suuqu inuu jihadiisii bedeshay oo aan ka rajaynayna maxay inuu haddii kadib dhinaca kale u jeesto oo hoostan cusub markaan helno waxaan rajaynaynaa korka cusub in aanu helno korkan kadib maxaan rajaynaynaa hoos cusub ayaan rajaynaynaa kor cusub ayaan rajaynaynaa just like that marka meeshan laftirkeedu waxay ku beegan tahay saylad adag oo suuqaani uu naga tusi karo waxa loo yaqaano mid ka mid ah naqshadii suuqa kala wareejin jiray oo waxaa dhici karta halkan suuqu markuu yimaado inuu maxay ina siiyo inuu halkan double top inaga siiyo ama uuna siiyo tiirarka islaag ee suuqa deetana uu soo daato oo doolarka uu daciifo waa sinaariyada koowaad oo doolarkan ka rajaynayno sinaariyada labaad oo doolarka rajaynayno waxa weeye seeladan adag suuqa hadduu dhaafo meesha ugu soo dhow oo aan rajaynayno inuu gaari doono halkan weeye sax marka iskama gelayno suuqu marka uu furmo isla markii buy iyo sell kulama ordayno ee waxaan rabnaa forecastingkeena iyo trade idea-heena inay iswaafaqaan forecastingku waa qiyaas ahaan meesha aan u rajaynayno suuqu inaaday trade idea-na waxa signalka loo yaqaano oo wixii aad qiyaastay marka uu diyaar garoobo inaad dib u gashid trade ahaan u gashid marka haddii halkan aan ka helno strong waxa la yiraahdo rejection adag oo suuqu halkan u dhaafi waayo 4 hour-ka waliba badanaa ah waxaa laga yaabaa suuqan inuu dhowr boqol oo biib u hoos u daato haddii laakiin uu jabsado isla markii iskama raacine waxaan sugaynaa isku laab ayaan sugaynaa kadibna dhinac kale ayaan raacaynaa haddaba isbuucu markuu suuqa furmo mondayda insha allah dhowrka saacadood ugu horeeya waxba trade ha samayn waliba waxaan kuula talin lahaa maalinta isniinta marka la gaaro barqadii london session wixii ka dambeeya suuqa qiime oo trade samee haddii aan halkaa kaga nimaano waxa la yiraahdo DXY aan dul tagno euro USD oo ah trade-ka ugu muhiimsan ee DXY saameyso dabcan waxa ogeedeen last week inaan idinla wadaagay set up ahaa by the way last week asbuucii kasii horeeyay ayaan euro USD galnay dad badan oo waxaa jirtay ay stop loss-ka uga dhacday hase ahaatee ugu dambeyntii jihadiisii loo rabay ayuu aaday wuxuuna daatay 300 biib iyo ku dhawaad xataa intriga cusbaa haddii aad ka qaadatay haddaba markii aan tan sawirayay last week ay ahayd oo waxaan u jeednay maxay suuqaani inuu kala wareeg sameeyey oo jihadiisii inuu badashay waxa la yiraahdo marka aad lower time frame ku fiirsid haddii aad daily kor la aadidna maxaa arkaysaa haddii aad daily kor la aadidna waxaan arkaynay in suuqaani uu entry naga siiyey halkan oo ku beegno 0.618ka oo videogan ka horeeya aan idinku tusayay ahna sidoo kale meesha demand and supply zone ka noo ah ee uu ku khasban yahay suuqu inuu kusoo laabto dad badan oo waxaa jiray trade-ka halkan ka qaatay oo uu la laabtay hase ahaatee qof walba oo galay waxaan rajaynayaa inuu kasoo celiyey wixii uu ka qaatay last week waxaan joognay markuu suuqu furmayay halkan ayaan marinay seeladan ayaan marinay 31 bisha ayuu markaan videoga duubnay Soomaaliya oo last week ah waxaan niri suuqu waa inuu soo jabiyaa zoonkan kadibna uu ku laabtaa kadib ayaan fursad kale ka raadinaynaa haddii aad fiirisid videogii aan duubnay last week waa kana halkan ayuu marayay 30 bisha ayay marka aan duubnay videoga actually so waxaan sugaynay inuu soo jabiyo kuna laabto kadibna inuu hoos u raacno dabcan sidii baa dhacday suuqu wuu soo jabiyey xariijimahan waxaan sawiray daraad haddaan 15 minutes ku tago maadaama aan 15 minutes ka joogo marka videogaas aan ka hadlaynay meesha aad hadda ishaadu qabanaysay videoga ka dhex muuqata waatana zoonkan ayaan ku iraahday waa zoon adag oo noqon kara maxay saylad uu suuq kusoo laabto waxaan sugaynaa inuu soo jabiyo kadibna uu noogu laabto habkii aan ku tusiyey ayay wuxuu dhaceen suuqu meeshii uu soo jabiyey uuna ku laabtay dabcan sida aad arkaysid hasaatee asbuucan maxaan ka rajaynaynaa asbuucan doolarka waxaa laga yaabaa in ay xooga awooda ku hartay balse boqolkiiba 90 waxay u badan tahay in doolarku uu kala wareegi doono si uu kala wareego marka buy baan iska gelayaa lama rabo inaad tiraahdid ee suuqu astaan ayuu leeyahay meelo loo fariista ayaa jirta oo suuqa laga filayo in uu ka kala wareegi karo dabcan head and shoulder-ka wixii ka dambeeyay haddii aan tirsano movieskeena suuqa hal dhaqaaq baa halka uga jeednaa dhaqaaqii labaad ayuu kan noqon karaa okay kanina wuxuu noqon karaa dhaqaaqii saddexaad oo laga yaabo in uu cabaar sii socdo marka laba zone-ba waan ka rajaynaynaa euro USD inay kala wareegto meesha ay hadda joogto waxaa dhici karta inay naga siiso tiirarka islaag kadibna aynu u raacno resistance-ga noogu soo dhow oo kan ah amaba aan u raacno ilaa iyo sayladii hore looga soo qaatay oo suuqa uu kala wareego maadaama aynu ogeyn DXY-gu inay u dhoweyd maxay laftirkeedu inay zone adag u dhoweyd sidaan waxay dhici kartaa haddii DXY-gu ay ixtiraamto structure-kan
sida aan hadda ku sheegay ayaa dhacaysa haddii ixtiraami weydo waxaan ka rajaynaynaa suuqu inuu awoodiisa kusii socdo oo uu maxay sameeyo oo uu soo jabsado waxa la yiraahdo zonekan hoose ee aad hadda arkaysid inuu suuqu soo jabsado kadib bullbackina siiyo deetana isku laabkaas aynu ka qaadano ilaa aynu ka gaarino weekly demand and supply zone-keena halkan euro USD markay soo gaadho niyadda ku haya insha Allah halkan euro USD markay soo gaadho waa meesha aan ka rajaynayno kala wareega suuqa maadaama ay ku beegan tahay saylada weyn ee asbuuclaha iyo dailiga ah marka saas kugu soo wada duubno euro USD haddii halkan aynu ka qaadano alshaan haddii halkan ay naga siiso meerto dhammaystiran iyo naqshadii suuqa waxaan ka rajaynaynaa inay kor aado oo halkan ayaynu intrigeena dhigan doonaa insha Allah haddiise ay soo gudubto alright tamariye haddiise ay soo gudubto oo waxa la yiraahdo oo suuqaani halkan yimaado intriga weyn ee aanu sugayno asbuuca dhamaadkiisa waa xagee waa halkan weeye marka isku soo wada duubo euro USD aniga waxaan ka sugayaa fursad buy ayaan ka sugayaa waa dhici kartaa selkan yarka inaad qaadatid of course selkan yarka inaad qaadato waa suurtagal laakiin waa risk you never know waxa dhici kara ma fahmaysaa so inta 80kaas waxa la yiraahdo peep aan ku mashquuli lahaa isku wareerin mayo euro USD aniga fursad buy ayaan ka raadinayaa asbuuca oo dhan fursadda bayda waxa laga yaabaa inay isniinta imaan inay talaadada imaan maybe inay arbaca ama khamiis timaado laakiin goor ay timaadaba waa tii timaada labadan intermidkood ayaan ka rajaynaynaa suuqu inuu yimaado oo uuna ka kala wareego insha Allah way aan tan ugu kalsoonaa selkeeda oo aan tan ugu kalsoonayn because tan waxaan ugu kalsoonaa suuqu markan ayuu soo kala wareegay alright tan selkeeda waxaan ugu kalsoonaa suuqu wili wuxuu ku socday momentumkiisii sida aan arkaysana sidii aan qiyaasinay ayaa dhacday laakiin meeshaan waxa arkaysaa suuqu inuu momentum ka dhintay dhinaca bidix hadaa fiirsidna uu ku beegan yahay seelad adag soo wax kasta ayaa dhici kara inuu kugu rafto halkan soo inta riskiga qaadan la maxaa waxaan sugayaa inta uu halkan ka imaanayo dollarku insha Allah si aan euro USD kor ugu qaato alright haddii aan aragno strong rejection halkan channelka week dheer intuu samaysto oo halkan naga siiyo entry positionka ka qaadan lahayn isagana halkan weeye waxaan aan ku tusayo maaha signal waa forecast waa qiyaas waa meesha aan rajaynayo suuqu inuu aadayo aniga oo ku qiimeynaya ruleska haddii aynu nimaano USD CAD oo ah lacag kale oo aynu last week iyadana sidoo kale la soconay USD CAD waxaad arkaysaa general directionkeeda horta inuu ahaa markiisii hore buy oo waxaad aragtaa momentumka suuqu markaynu dailiga geyna xataa inuu yahay suuq buy ku socday oo hadda intuu ka baxay consolidationkan aan arkay sidoo dheer ayuu ka baxay waxaan ka rajaynaynay inuu buygiisa kusii socdo oo uu kor u socdo momentumka guud ee suuqu waa buy sida aad arkaysid xataa weekliga marka aan geyno si fiican ayay kugu muuqanaysaa oo waxaa dhici karta suuqaani inuu yimaado halkan kadibna uu ina siiyo lower cusub kadibna uu kor u sii socdo annagoo taas niyadda ku hayna ayaan taxliilinteena bilaabaynaa insha Allah marka waa daily time frame ka imow si aad fikrad uga heshid jihada waxa la yiraahdo meelaha laga heli karo higher highska iyo lower lowska suuqa si aynu ugu dabaqno setup-iskeena insha Allah waxaan arkaynaa waxaan oo dhan inuu yahay soo laabadkii nasashadii move-kan dheer ee impulsiga arkaysid ama motive-ka correction-kiisina waxaan yahay in ka rajayna suuqa inuu dhaqaaq cusub oo hadii kow ayna siiyo oo dhinaca kale u jahaysto oo direction-ka guud ee suuqa marka aynu dailiga ku fiirino waxa inoo muuqata inuu yahay buy ama bullish inuu yahay ayaa inoo muuqata hase haatee waa bullish waa iska gelayaa lama rabo inaad tirahdid waa in setup-kaagu uu ku salaysan yahay rules marka aynu tagno bal 4 hourska kadibna aynu qiimeyno xaaladda suuqa dabcan sida halkan ka arkaysid suuqa waxaan ka rajaynaynaa halkan haddii uu kasoo kala wareegay inuu ina siiyo haddii uu sal aadaya calashaan baan sheegayaa maadaama uu halkan kasoo kala wareegay suuqu oo uu downtrend soo aaday maxaan u naqaanay calashaan suuqa markuu jihaysto inuu samaysto hoos cusub kor cusub hoos ka cusub kor ka soo cusub hoos ka soo cusub haddii aan aragno marka suuqa oo soo laabtay oo korkii hore kor ka sareeya la soo baxay waxay ka dhigan tahay jihadii halkan ahayd ee uu suuqan u socday in ay ka kac tahay aysan waxba ka jirin oo uu suuqu ku qasban yahay ama uu galay zone dhexdiis lagaga trade garayn doono ama inuu galay ama inuu jihada bedeshay dabcan USD CAD xaaladeedu sidaas ay ahayd oo selkii halkan ahaa dhaqaaqi kood markaan aragnay hoostii ugu dambeysay ee suuqa tan ayay ahayd
alright maxaan ka rajaynaynay hoos ka cusub oo halkaan intay timaado maxay inuu suuqu daato balse ma daadana maxaa kuu muuqata inuu nagu soo laabtay oo uu yimi maxay kor cusub oo oo ka koreeyo korkii u dambeeyey meeyey korkii u dambeeyey waa kana alright so in the case marka waxaynu aragnay suuqan inuu zone galay oo in the zone lagaga dhex adeegan karo sidoo kalena ay jirto suurtagalnimo ah in bullishkiisii uu kusii soconayo oo kor aadayo daba USD CAD last week waxaa la yidhaahdo halkan ayay joogtay markii aanu trade garaynaynay balse ma aanu qaadan maadaama aysan marna soo dhaafin demand and supply zonka weyn ee suuqa asbuucan wax badan isma aysan bedelin weli tabteeda ayay ku socotaa suuqu wuxuu ugu xirmay mondaydii fridaydii isaga oo uu jooga maxay isaga oo jooga meesha u dhaxaysa daily support iyo daily resistance ahna sidoo kale ranging market oo uu suuqu ku jiro meesha u dhaxaysa labadan zone haddaba fursadda anigu aan ka sugayo USD CAD waxay noqon kartaa haddii aan arko inuu suuqu jabsado zonekan hadda u joogo fursad waxaa ku jirta buy ah oo waxaa dhici karta ilaa next zone inaan usii raacno balse waa inaynu helno clear rejection oo halkaan ah iyo candlestick confirmation iyo sidoo kale markaynu time framekan joogno kan kasii hooseeya aan tagno waxaynu sii helaynaa naqshadii suuqa kaas waa qodobka labaad arkayna waxa weeye last week rejectionkan wuxuuna tusay suuqan inuu halkaan ahaa maxay inuu halkaan ahaa demand and supply zone adag demand and supply zone keenan ilaa laga dhex baxo oo lasoo dhaafana aysan suuqa fursadi ka dhaweyn laba jeer ayaa la isku dayay in lasoo dhaafo markii koowaad waa kana halkan ayuu ahaa uu ka daatay suuqu dhalinyarada qayb baa gashay oo ila soo wadaagaysay mar kale ayuu halkan yimi uu ka daatay haddana sidoo kale laba jeer ayuu hoostan kasoo kacay hal mar ayuu kasoo kacay actually so mar saddexaad ayaan ka rajaynaynaa inuu suuqu isla zonekii kusoo laabto oo uu halkii yimaado balse in this time waxaan rabnaa suuqu marka uu halkan yimaado inagoo niyadda ku haynaa waxaa la yidhaahdo awoodda dollarka waxaan ka rajaynaynaa maxay in haddii uu dollarku awood sii yeesho sidii aan DXY kasoo sheegnay inaan sugno maxay inuu halkan suuqu kasoo daato kadibna aan u raacno next zone oo kan kasii sarreeya haddii laakiin dollarku uu daciifo oo aynu aragno suuqaani inuu laga awood badanayo dollarka waxaan rabnaa in uu zonekan kasoo dhex baxo hadda uu joogo ilaa uu zonekan kasoo dhex baxaya haddii aad tiraahdo waa qaadanayaa riski ayaad dhex galaysaa oo meeshaan labada zone u dhexaysa haddii aad USD CAD ka qaadatid you're not safe waxaa ku dhex jirtaa dabin suuqii ah sug marka inta ay baddu clear kuu noqonayso sug inta ay jihadu kuu cadaanayso last time suuqu meeshii uu ka wareegay ama jihadii u dambeysay uu suuqu bedeshay jihada salka ayay ahayd oo sababta aan bahalkan u sawiro waxa weeye markaan time framekan joogna mid ka hooseeya aynu nimaano waxaa kuu muuqanaya maxay let's go like this waxaa kuu muuqanaya suuqu inuu jiha ahaan maxay ahaa inuu sel ahaa alright 3 dhaqaaq uu sameeyey kadibna meeshaan ay tahay meesha uu kala wareegu ka dhacay oo aan ka rajaynayna maxay suuqu inuu jihada bedesho ama uu zone galo jihadii ma uusan bedelan oo bullish muusan aadin zone ayuu galay zonekan uu galay marka inta uu ka dhex baxayo oo demand and supply zoneskan labada ah uu ka dhex baxayo sugo fursaddan yartaa way jidhaa oo bayga ah oo halkan aad ka qaadan kartid waa suurtagal oo ilaa halkaa u raaci kadib balse ma galaya anigu labada fursadood aan gaadaya waxa weeye inuu halkan yimaado oo kor u qaato ama inuu halkan yimaado oo hoos u qaato haddii halkan yimaado kor u qaadanayna waxay ka dhigantaa suuqu jiha ahaan inuu isbedelay oo uu bay aadayo haddii uu soo kala wareego oo halkan yimaadana waxay ka dhigan tahay in uu indecisionka ka dhex baxay suuqu ama xaaladdan aan caddayn uu ka dhex baxay oo uu selkii kusii socon doono that is USD CAD haddii aan hore usii soconna tradyada kale asbuuca aan isha ku hayna waxaa ka mid ah USD CHF USD CHF actually waxay ahayd mid ka mid a lacagihii last week aan videogeena ku falanqaynay oo halkan ayuu suuqu marayay markaan videoga duubayay asbuucii dhaweyd actually halkan ayuu marayay oo waxaan qiyaasnay in the next demand and supply zonekeenu uu ahaa kor suuqana uu hore usii socon doono kadibna uu fursad halkaa naga siinayo haddii aad fiirisaan videoga aan last week duubnay USD CHF waxaan ka rajaynaynay maxay waxaan ka rajaynaynay somewhere here yeah soo ma jeed meesha uu marayay yeah waxaan ka rajaynaynay inuu meelahan meela uu naga siiyo the next demand and supply zone kadibna aynu kor usii raacno I think in sidaa ahaa videoga adaa ka arki doontaan haddii aad dib u daawataan nucurku wuxuu ahaa
in lacagtani ay jiha ahaan jeesatay oo uu suuquna bullish yahay. general directionkiisu waan soo eegnay oo buy buu ahaa suuqaani, oo waxaan rabnay correctionkan aad arkaysid move dheer ayaa halkaan samaysmay oo buy correction ayaa samaysmay, move kale oo dheer ayaan raadinaynaa oo USD CHF correction ku sameeya oo ilaa kan korkaan kor ka sarreeya inuu soo baxo daily time frame. haddii aad weeklyga fiirisidna waxaad arkaysaa in uu suuqu ahaa in the zone oo uusan ahayn suuq direction ku socday, waxaa la yiraahdo buy iyo sell tone jiha ah aan lahayn oo uu u dhaxeeyay maxay range-ga labadaana. marka in this case aynu kor ula soconay, marka aynu lower time frame ka joogno suuqa jiha ahaan kor ayuu u jeeday oo maxaynu arkaynay, waxaynu arkaynay in la fatuuday ama la bedelay jihadii selka ahayd ee uu suuqan kusoo leexan rabay ama uu kusoo dhaqaaqi rabay. halkan marka aad timaadid waxaa inoo muuqata in suuqan uu bullish ahaa, deetana kala wareegan kadib suuqa waxaan ka rajaynaynaa maxay inuu bearish ku socdo soo maha. bearishka sida saxda ah haddii aynu u raacno oo aynu nidhaahno kaba soo qaad movekeena koowaad halkan ayuu kasoo bilowday soo maha, nasashadeena koowaad halkaan ku dhamaaday move koowaad, nasashadeena koowaad waa tanaa. let's say meeshaan yartaa move kaba dhig baad aragtid, hoos cusub uu samaystay, kor cusub ayuu samaystay, hoos cusub ayuu samaystay. haddii marka korka cusub ee la samaysto uu noqdo mid ka sarreeya korkii isaga ka horreeyay, maxay ka dhigan tahay suuqu inuu jihadii bedeshay ee lagaa rabo inaad baraarugtid ee aadan oran suuqan halkan ayaan sel uga gelaya, halkan ayaan sel uga gelaya aadan oran. waa aadan suuqan halkan sel uga geli karin because korkii u dambeeyay ee suuqa waa laga kormaray, which means laxankii iyo siiqadii uu suuqu ku socday inuu isbedelay. maxaa lagaa rabaa markaad waxyaalahan oo kale aragtid inaad tirahdid alright trend line-kayga iisoo qabo, annagu trend line-ka waxaan ku isticmaalnaa in uu notiso jihada suuqa, waa jiheeye wax kale nooma tiro wanaga. alright so haddii aan halkan dhigno maxaa kuu muuqanaya suuqan jihadii uu kusoo socday maxay in laga bedelay oo uu dhinaca kale u jeestay. maxaa marka raadinaysaa movekii u dambeeyay ee buyga ahaa ee jihada bedelay ayaa raadinaysaa may waa kana waa moveka halkan kasoo bilowday ilaa halkan socday. kadibna bullbacktiisa koowaad maxay noogu aadanayd, bullbacktiisa koowaad waxay noogu aadanayd maxay demand and supply zone-keena suuqa. okay demand and supply zone-kan markaan helena goorma ahayd waa markaan videoga duubinay last weekii. halkan qofkii tradekan ka qaatay how many pips ayuu la socday ilaa iyo next waxa la yiraahdo move wuxuu la socday 180 pip. dhalinyaro badan oo qaatay baa jirta oo ila soo hadlaysay oo ii soo dirisay inaan iraahdo tradekan anagu soo analyze garaysto oo waxayga soo samaysto oo markuu entry-gan joogo aan kuu soo diro inaan ku tuso sida trade-ka loo sameeyay oo adigu waa entry walba oo uu samaysto aad ka gashid keeba qurux badan. idinkaan idin deynaya jawaabteeda. meeshaan siiqada suuqa laga bedelay sidoo kale waxaad arkaysaa inay noogu beegneed maxay demand and supply zone, oo haddii entry-ga koowaad oo kan ahaa uu ku dhaafay, entry-ga labaad heli kartay may waa kana isku laabkan ayaa heli kartay oo intii uu halkan soo jabsaday uu kusoo laabtay kadibna kor ayaa u raacday. haddii uu kan ku dhaafay maxaa heli kartay kan uu hadda joogo oo aan ka sugayna weekend. haddaba again lacagtan waxaan sugaynaa dollarku sida uu u dhaqmo isniinta marka uu suuqu furmo. haddii aan aragno dollarka oo very strong oo awood leh, maxaynu leenahay dollarka oo awoodda uu hadda leeyahay mid ka sii weyn sii yeesha, waxaynu leenahay USD CHF halka ayaan fursad buy ah uga qaadanaynaa. deetana waxaan rabnaa inaan u raacno ilaa iyo xagee ilaa iyo next zone-keena ama zone-keena ugu horeeya suuqa. haddiise sida badanaa tradyada USD ay ku jirto aan hadda usoo taxliilinay oo kale ay dhacdo oo uu dhaqaaqan dhammaado, halkan wixii ka dambeeyay suuqa waxaan ka sugaynaa maxay, waxaan ka sugaynaa kala wareeg ayaan ka sugaynaa inuu meelahan meel ka mida uu inaga siiyo maxay, inuu inaga siiyo kow naqshadihii suuqa kala wareejin jiray mid ka mid ah tusaalahaan kale head and shoulder ama tiirarka isleeg ama tiirar kala gaaban. haddii aadan aqoon fadlan videoyada duuban soo daawo, wax badan ayaan kaga soo hadlay waxaan oo dhan. kadibna fursadda weyn ee suuqa ee aan ka rajaynayno waxa la yiraahdo USD CHF waxay noqon doontaa fursad sell ah oo aan rabno inay halkan timaado insha Allah, inay halkan timaado. haddii ay dhici weydo taasi oo suuqu uu dollarku meesha uu hadda joogo uu ku daciifo, maxaynu ka sugaynaa fursaddeena selka ah xagee baynu ka heli doonaa kan marka lasoo jabsado. alright kan waa inta yartaa ee kor u socdo, korkaa markuu gaaro halkaasaan ka rajaynayna inuu soo aado. haddii laakiin saas ay dhici weyda baan ku idhaahday oo hadda meesha uu marayo tusaalahaan kale intuu na siiyo meelahan double top naga siiyo oo halkan kasoo kala wareego
mar alaaleeya marka demand and supply zone-kan uu soo jabsado ayay noo xaqiiqoobaysaa dollar waxaa la yiraahdaa Switzerland inuu kala wareegay. Alright, ilaa aad ka aragtid marka xaalad noocaan oo kale ah in uu dollarku halkan kor cusub ka samaysto kadibna uu demand zone-kii uu ka kacay uu soo jabiyo, markaas waxay ka dhigan tahay fursadda aan buyga inaysan active noqon doonin, selkii weynaayo korka aan ka suganay halkan laga heli doono. I think inuu warkaygu ku cad yahay. haddii uusan ku cadayn boos ku qaba videoga ama dib usoo bilow. USD JPY wuxuu ka mid ahaa tradeyo aan idinla wadaagay jimcadii isaga iyo Euro USD ba, meeshii aan idin iri jimcadii uu ka kala wareegayaa ayuu actually ixtiraamay, balse weli ma hubno inuu sii ixtiraami doono maadaama support area adag ay noo dhowdahay oo aan rajaynayno 70 pips kadib inay wax kasta halkan ka kala bedelmi karaan. hase haatee aan yara dul istaagno USD JPY sababta aan halkan ugu qanacnay inaynu iyadana fursad ka raadino. waxaynu arkaynaa meeshaan inay ku beegan tahay maxay? meeshaan inay ku beegan tahay highest resistance of the market, ama waxa la yiraahdaa meesha aan ka rajaynayno in uu suuqu naga siiyo maxay? in uu suuqu naga siiyo the next supply zone oo korkaan ah. Alright, marka in that case waxaynu leenahay suuqaani halkan ayuu kasoo kala wareegay oo wuxuu ku socday general directionkiisu sell ayuu ku socday. sellkii uu ku socday haddii korkaan hadda la marayo laga kormaro oo lasoo dhaafo ma ay shaqayn doonto, oo saan laga soo dhaafo waxay ka dhigan tahay suuqu inuu jihadiisa isbedelay, laakiin ma aysan dhicin oo lama soo dhaafin soo ma. Alright, let's see one more time inaan dib ugu noqono oo idin soo tuso general directionka suuqa. waxaa u jeedaa suuqan inuu halkan ka soo daatay fursad cusub oo hadda iyo kowsal ah. selka oo halkan naga soo siiyey daadashadii koowaad inay ahayd waxaan aad arkaysid oo uu suuqu soo daatay. Alright, deetana aynu ka helnay retracementigeena, aynu ka helnay supply zone adag. haddii sidaanu inoo waafaqana next zone aan suuqu raaci karno inuu kan yahay. that was our wuxuu ahaa setupkeena ama sida aan uga fakarinay USD CAD marka aynu ka hadlaynay la socodka jihada suuqa. hase haatee haddii aynu lower time frame ka nimaano taxadarkeena iyo meelaha aan iska ilaalinayno waxaa ka mid ah waxaynu ognahay in wax kasta isbedeli karaan maadaama COVID-19 uu socdo, maadaama dollarka aynu ka baqayno inuu jiha ahaan inuu daciifo awood ahaan, laakiin inuu awood ahaan waxa ka wadaa uu sii adkaado oo korkiisa u sii socdo. the only way uu trade-kan inactive ku noqon karo ama uusan ku shaqaynayn waxay noqonaysaa haddii suuqan uu soo jabiyo maxay? haddii uu suuqan soo jabiyo supply zone-kan aynu kasoo raacnay markii hore oo uuna korkiisa ku xirmo oo aan aragno pullback kadibna uu kor aado. in that case waxay ka dhigan tahay trade-ka aynu jimciya halkan ka gelinay in la stop garayn doono oo uusan soconayn insha Allah. hase haatee next wave-ka aynu selka ka sugayno ama aynu fursadda selka ka sugayno ay noqon doonto korkiisa hore in lagu laabto. haddiise aan halkaa lagu laaban oo uu suuqu yimaado maxay? oo uu suuqu halkan uu hadda marayo uu ka daato, deetana resistance-geena yarka arkaysid uu ka sii daato oo uu soo jabsado, support zone-keena arkaysid haddii uu soo jabsado oo uu soo dhaafo, trade-keena waynu sii haysanaynaa. qofkii galay baan la hadlayaa, sug inta uu halkan soo dhaafaya haddii aadan gelin kadibna ilaa zone-kaas u raaci karnaa fursadda selka ah. haddii laakiin sida ay dhici weydo oo uu suuqu halkan yimaado bartaan ayaa waxaan ka sugaynaa maxay? demand zone-kan adag ayaan waxaan ka sugaynaa arbaco khamiis oo kale inuu naga siiyo maxay? inuu inaga siiyo suuqa inuu dhinaca kale soo aado oo uu soo kala wareego. USD JPY kama mid ahaa traderyada aan trade garayn doono usbuucan, balse setup-kan wuxuu ka yimi last week oo halkan ayaan fursadda ka qaadanay. qofkii qaatay jimcadii trade-kan NFP markaan suginayay ahayd 54 bibo faa'iido ayaa ku jira ilaa iyo resistance-ga haddii aad sii haysan kartid waxaa laga yaabaa 70 bib inay ku siiso, laakiin resistance-gan kadib ayaa waxaa laga yaabaa inay iyadu isku bedesho demand and supply zone oo intuu suuq soo jabsado uu ku laabto uu ka sii daato, ama inuu demand zone-keena caadiga uu yimaado oo halkan marka la yimaado ayaan fursadda buyga USD ka raadin karnaa. haddii kale wax kasta ayaa dhici kara. intaasna waxay ahayd USD JPY. GBP USD haddii aan fiirino wiigga waxa aan ka rajaynaynaa iyadana let's say USD JPY wiigii lasoo dhaafay korkan ayaan kasoo qaadanay. hase haatee hadda waxay maraysaa iyaduna meel very crucial ah ama point aad u muhiima ayay maraysaa. trade-kan anigu waan qaatay asbuucii aynu Euro USD geli jirnay ayaan qaatay asbuucii dhawaad. hadda markaan Euro USD gelanay labadii bisha ayaan qaadanay because of this strong supply and demand zone ama sayladeenan ayaan kasoo galnay.
hase ahaatee haddaynu 2 hourkeena nimaano kadibna aynu fiirino xaaladdu sida hadda u eg tahay waxaad arki kartaa in suuqu momentumkiisii uu dhumiyey jimcadii gelinkii dambe wixii ka dambeeyey hase ahaatee fursaddan haddii aad hore uga jirin the only chance oo GBP USD aan ka raadinayna waxa weeye haddiiba uusan suuqu kala wareegin oo doolarka aan laga awood badan oo uusan halkan ka kala wareegin waxaa fursadda keliya ay kuu bannaan ee aad sugaysa waxa weeye inuu suuqu maxay sameeyo inuu suuqu halkan soo jabiyo sidaa arkaysid deetana uu halkan ku laabto deetana uu kuusii socdo ilaa iyo zoonkeena kale waa sida aan ka rajaynayno DXY GBP USD tradyada isha ku haya ayay ka mid tahay GBP yaasha kale aan isha ku haya waxaa ka mid ah GBP CAD oo iyadana aan last week idinla wadaagay actually channelka waxaan u malaynayaa ardayda inaan halkan idinkula wadaaga iyadoo maraysa oo aan sugayna maxay in ay halkan suuqu yimaado wuu yimi dad baa halkan ka qaatay maybe wiigaa dheer inuu structurekaas dambe kaga dhuftay hase ahaatee intrigu actually wuxuu ahaa meeshan oo aan marka horeba ka gelinay jihada guud ee GBP CAD waa sal weeye haddii waxaan oo dhan aad hal lagu xisaabisid tan oo dhan waxay noqonaysaa nasasho lugti ka hooseysa baan rajaynanaa hadda inay samaysanto the next wave meesha aan ka sugana inay ka dhacdo ee suuqa waxa weeye meeshaan ku beegan demand and supply zone-keena ama uu suuqu halkan noogu soo laabto halkan marka uu yimaado ayaan ka rajaynayaa maxay the next wave oo ilaa iyo support areahan aan usoo raaci doono insha allah marka GBP CAD waxay ka mid tahay lacagahan isha ku hayo insha allah weekend meesha aan ka rajaynaya in ay naga siisa interina waa halkan GBP sidoo hore maaha meesha ay 20 bib dhaqaaqi jirtay 100 bib ay dhaqaaqaysaa meesha ay 100 bib dhaqaaqi jirtayna 400 iyo 500 bib ay dhaqaaqaysaa lacagaha aan isha ku haya ayay ka mid tahay GBP CAD iyo GBP USD labadaba fursad sal ayaan ka raadinayaa euro GBP isbuuca waxay ka mid tahay lacagaha aan aadka ula socday muddo aan ilaalinay halka inaan baa uga qaadano waan damacnay laakiin waxaad arkaysaa in uu naga hooseeyey the strongest demand zone oo halkan ka dhacay maadaama GBP aan sal ugu jirno euro bayris oo dhan isbuucan waxaan ka rajaynaynaa inaan baa u galno insha allah labo doorashaba meeshan way ka muuqataa doorashada koowaad waxa weeye halkan ka arkaysid in suuqu sidoo hadda ku socdo oo baygiisa ugu socdo markuu furmacaawa laakiin fursaddeena bayga ugu horeysa waxaan ka sugaynaa inuu suuqu halkan yimaado deetana uuna siiyo bullback dhammaystiran waxaa laga yaabaa bullbackteena inay halkan kasoo laabato maadaama structure ku beegan tahay ama ay halkan koroba kasoo laabato kii ay ahaataba marka uu suuqu halkan kusoo laabto ayaan fursaddeena bayga ka raadinaynaa laakiin confirmationskaagii oo dhan waa inay ku siisaa waa inaad iska oran halkaasaan suuqan baa uga gelaya hase ahaatee euro GBP meesha aan fursad ahaan aan bayga uga raadinayno asbuucan halkaas ayay noqon doontaa insha allah haddii laakiin uu suuqu strong area ay ku noqoto meeshan oo uu dhaafi waayo halkan sida hadda ku muuqata deetana uu soo laabto meesha labaad ee aan fursaddeena bayga ka sugino waa xagee waa halkan si lamida sida euro USD euro GBP iyadana waxaan ka sugayaa maxay iyadana fursad baa ayaan ka sugayaa asbuucan oo ma doonayo marna inaan sel ku qaato okay selkan yarka hadduu halkan tago soo laabto waxbay kama gelin xataa ilaa khamiista hadduu qaato meelahan yimaado waxbay kama gelin sababtoo ahna waxaan u socdaa jihada guud ee suuqa inaan raaco ee uma socdo dhaqaaqa yarka ama laabashada yarta ee suuqa inaan raaco euro paris badanaa waa isku mid euro AUD ayayna iyadana isha ku haya asbuucan waxaan ka rajaynaynaa euro AUD sidoo kale last week euro AUD waan qaatay aniga iyo dhalinyarada qayb ka mid ah waan qaadanay oo trade ahaan halkan ayaanu ka galnay waxaad arkaysay marar badan baa kusoo celiyey in halkan suuqa uu ka sameeyey maxay kala wareeg oo korka ugu dambeeyey suuqa oo meelahan ahaa in kor ka dambeeyey soo baxay deetana hoostii hoos ka dambeysay ay soo baxday meeshaan waxay noogu beegneed demand and supply zone adag bay noogu beegneed sidoo kale waxaynu ka helnay haddaa labadan xisaabsatid double bottom ayaynu ka helnay sidoo kale halkan haddaa fiirisid mar labaad ayuu isla demand zone-keena kusoo laabtay which makes the market inuu galay in the zone so suuqan fursadda bayga aan ka raadinayo laba meelood bay ka dhici kartaa haddii sidii last week oo kale uu soo laabto suuqan actually haddii uu soo laaban waayo oo uu jabiyo jihadeenan okay haddii uu jihadeenan jabiyo oo kusoo laabto bartan ayaan fursad ka sugaya insha allah bay ah si aan next zone ugu raaco insha allah haddii laakiin sidaas ay dhici weydo suuqu bilaa momentum noqdo sida marar badan dhacday oo kale deetana uu nagu soo laabto halkan ilaa uu halkan ka yimaado deetana aan ku arko sidaan oo kale confirmations ama ha noqoto shumacyada isdhala ama shumacyada isliqa ama ha noqoto waxaa la yiraahdo naqshadaha suuqa midkay noqotaba marka aynu helno kadib ayaynu halkan fursaddeena bayga ka qaadanayna alright marka labada option midkood ayaan ka rajaynayaa euro USD waxaan ka wadaa euro AUD oo ah trade aan asbuuca oo dhan daawanaynay
labadan zone midkood ayaan fursad buy ka raadinaynaa sideedaba inta aad banaanka joogtid ayaa lacagtaadu safe ku tahay haddii laakiin suuqa aad soo dhex geshid wax safe ku ah ma jira alright haddii suuqa aad soo dhex geshid wax safe ku ah iyo wax aad ma garanaysaayay ilaalin kartid ma jiro laakiin inaad wax sugtid oo haddii aad halkan suuqu soo dhaafo zoonkan waxa iska cad inuu labadan dhexdooda ku wareegi doono muddo haddii uu halkan laga celiyana meesha intaanoo maynaysa ay kugu socon lahayd sug intuu intriga saxda ka tagaya midda kale ruleska dib ugu laabo oo waxyaalihii aan kasoo sheekeynayo oo dhan isku day inaad dib u daawatid okay and daatna waa euro AUD iyadana saasaan ka rajeynanaa ugu dambeynta haddii aynu gold fiirino oo asagana last week aan idinla wadaagay jimcadii meeshii aan idin iri gold waan ka sugaynaa ma uusan imaan waxaa arkaysaa gold inuu galay ama dahabku inuu galay xaalad adag runtii oo waxaa la yiraahdo consolidation ah mar aan halkan kasoo galnay wuu jiray I think inay ahayd 2 weeks ago muddo weynu la soconay ase ahaatee sida halkan kaaga muuqato muxuu sameeyey suuqu wuxuu sameeyey in aanu sel dambe aamini karin maadaama korkii kor ka dambeeyay uu soo baxay arrinta ayaa dhalisay inaanu fursad buy raadino hase ahaatee sida aan kusoo sheegay wax walba waa unpredictable because of coronaviruska iyo covid-19ka iyo waxyaalaha socda xeer waxaa la marayaa NFP-gii iyo shaqooyinkii wadamadu aysan macno badan ku lahayn adduunka tradingka maadaama caafimaad ahaan dadkoodu ay shaqooyinkooda igu joogaan عشان 700 oo kun oo ruux oo shaqo la'aan noqday haddii caafimaad xumo iyo covid-19 aysan jirteen suuqa way saameyn lahayd laakiin waa wax adduunka oo dhan ka siman yahay so unpredictable ayay noqotay meeshan dabcan waxaa ku muuqda in suuqu uu jiha ahaan wareegay marka laba mid waan ka rajeynaynaa in uu zone-kan ku dhex wareego halkaan markuu yimaado sell noqdo halkaan markuu yimaado buy noqdo intaan ku dhex wareego hase aatee fursadda aan ka raadinaya aniga waa general ahaan waa buy oo waxaan rajeynayaa anigoo ka fikraya DXY-gayga in doolarka laga adkaan doono haddii uu doolarku awood sii yeesho waxaan sugayaa inta uu halkan kusoo laabanaya alshaan doolarku hadduu awood yeesho waa la soo celinayaa gold meelahan ayaa la keenayaa kadibna kor ayaan raacaya haddii doolarka laga awood badiyo waxaan rajeynayaa kan waa scenaariyada koowaad haddii laakiin doolarka laga awood badiyo waa iska gelimayo halkaan aan ka raaci maye waxaan sugayaa inta uu jabsanayo structure-kan kadibna uu fursad siinayo kadibna aan kor raacaya ilaa asbuuc muuqaato ilaa 4 bar muuqaato ilaa 5 bar muuqaato isku soo wada duub lacagaha fursaduhu ka dhow yihiin ee asbuucan aan rajeynayo inaan qaato kuwaas ay u badan yihiin marka ay trade-yadaani ay inter yeeshaan oo fursad ka dhawaato signal ahaan ama trade ID ahaan ayaan idinku soo update gareyn doonaa gruubyada Telegram-ka aan idin sheegi doona fursadii inay diyaar tahay ee laga faa'iideysan karo insha Allah intaan asbuuca dambe ku kulmi doono videogan mid lamid ah dhamaantiin waxaan idin leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh